السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا جانل كينا كوبcinta garaadka caruurta waa walaashin Raxmo Xuseen. Maanta waxaan rabaa inaan ka wada hadalno faa'iidada ay leedahay xabad u siixinta caruurta. Ilmaha markaad u siixino xabad waxaa badanaya dhaqdhaqaaqooda taasoo ka saacideysa murqahooda inay xoog yeeshaan. taas murqahaas siiba midka kuwa ku jiro dhabarka, qoorta iyo lugaha. taasoo ka caawin doonto in ay isrogaan waqtigii oo looga talagalay inay isrogaan. iyo fadhiga iyo gurguuradki iyo istaagi iyo weliba socodka. Ha u siixinin cunuga asagoo calooshiisa buuxdo ama cunuga oo baahan. cunugu asoo hurdaya xabad ha u siixinina. xabad u siixidka faa'iido leedahay inta dhahdin. cunugu hurda xabad ha u siixinina. siiba hooyooyinka cusub. taasna waa kaftan. marka maal cunugu soo jeedo oo ilaalinayso sababta cunuga madaxiisa wili ma is ilaali karo. sanka inuu dhulka dhigtaa laga yaabaa. marka waa ina ilaalisid adoo ag taagan maalintii 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo dhowr mar maalintii. taas marka insha Allah waxay ka caawin doontaa murqihiisa inuu dhismo oo cunugiina waqtigii oo dib ugu dhicin srogii iyo saharo soo sheegay iyo fadhigii iyo wixii ka rabna. insha Allah fikradiinana ku soo darsada waa u baahanahay. subscribe gareeya. waa walaashin mar labaad Raxmo Xuseen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.